kulankii toddobaad ee la tashiga guddiga farsamada shabakada tele-daweynta iyo gargaarka farsamo ee Bariga Afrika ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay isla markaasina lagu soo afmeeray magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti kadib 3 maalmood oo shirar istaba jooga iyo doodo farsamo iyo falanqeyn istiraatiijiyada ay ka qayb galeen xubnaha ka socda dalalka xubnaha ka ah wadaagta gobolka iyo hay'adaha caalamiga ku takhasusay bahda caafimaadka. shirkan ayaa lagu soo gabagabeeyay qodobo muhiim ah oo ku saleysan xoojinta awoodda farsamo ee dalalka xubnaha ka ah tababarada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo ballaarinta adeegyada tele-daweynta si loo gaaro daryeelka caafimaadka oo loo sameeyay. wasiirka caafimaadka ee Jamhuuriyadda Djibouti Dr. Ahmed Roble iyo waliba sidoo kale dhigiisa dalka Soomaaliya ayaa iyagu carabka ku adkeeyay muhiimadda wada shaqeynta dalalka gobolka dhanka horumarinta adeegyada tele-daweynta iyo taageerada farsamo si loo gaaro ujeedooyinka caafimaadka ee waara Bariga Afrika. Djibouti waxaa ka socda labadii cisho ugu horeysay khubarada ayaa isku timid shirkan lagala tashanayo wadanada 14 wadan ee Afrikada bari iyo badan oceanka waayo waxa nagu jira Madagascar, Île Maurice, Seychelles ayaa nagu jira. waxaan laga wada xaajoonayay sidii aan isku taageersan lahayn xaaladahan degdeg ee xanuunadan faafaya ee madaqadeena ka socota dhex wareegsanaya mandaqadeenan marka sidii aan wadanada jaarka ah ee ma garanaysaa isku tiirsan sidaan uga wada shaqeyn lahayn isku taageersan lahayn sidaan dhinac kaliya taan uga wada joogsano xanuunadaas soo fidaya inta badan ugu wacan tahay cimiladan isbeddelaya ay ugu wacan tahay weeyaan shirkan wuxuu nuxurkiisu wuxuu yahay inaan wax wada wadaagnana oon ma garanaysaa aan wax isku sheegno sharing aan sameeyno oo hadduu wadani dhibaato ay ku timaado oo wadanada kalena ay wax la qaybsami lahaayeen ama talaha noqoto ama adeeg ha noqoto yaan maanta isugu nimidnay si habfam sameeyana way u socotaa aad baan ugu mahadnaqayaa walaalkay Dr. Ali oo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya iyo wasiiradii kale ee kasoo qayb galayba aad baan ugu mahadnaqayaa insha Allah natiijo fiican baa ka iman doonta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha wadankeena Alxaaji Ismaaciil Cumar Geele oo taladan nagalo garab galay taageerana noo fidiyay inay shirkani uu si habsamiya iyo si qurux badanna u dhaco insha Allah wax fiicanna way ku dhamaan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo shirkan waa shirkii saddexaad 14 dal oo Bariga Afrika ku yaalo ayaa waxay ku midoobeen Regional African CDC Steering Committee kan waa kii saddexaad kii koowaad waxaa lagu qabtay Tanzania oo Soomaaliya jeer loogu doortay kii labaad waxaa lagu qabtay Nairobi kii saddexaad ayaa hadda lagu qabanayaa Djibouti maanta ayaan waxaan filaynaa Soomaalina inay jeernimadii wareejiso halkaas oo jeer cusub lagu dooran doono haddii Ilaahay yiraahdo saddexdii sano soo dhaafay wax badan ayaa noo qabsoomay oo isku xirka wadamada iyo ma aragtay iskaashiga ka hortagga xagga cudurrada dilaaca iyo sidii loo xakameyn lahaa wax badan oo ku saabsan ayaa qabsoomay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan sii xoojino isku xirka mandaqada iyo iskaashiga ka dhaxeeya inaan sii xoojino iyo wada shaqeynta aan la leenahay African CDC iyo hay'adaha kale caalamiga iyo saaxiibada kale aan leenahay inaan sii xoojino aan rajaynaa haddii Ilaahay yiraahdo marka waxa miro dhal ah ayaa ka soo bixi doono gunaanadka shirka haddii